gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ay weheliyaan mas'uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Caynaba bahda waxbarashada ee gobolka Saraar ayaa maanta waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen dayriska wax u qabso loogu dhisi doono dugsiga Ayaanle Primary School ee ku yaala magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Mas'uuliyiintani ayaa si wada jir ah waxay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan gobolka Saraar inay si iska wax u qabsaa uga qayb qaataan dayrkani loo dhisi doono dugsiga Ayaanle ee ku yaala magaalada Caynaba. maanta halkan waxaa naloo dhagax dhigayaa oo naloo aanu ku tala jirnaa inaanu ka wada qayb qaadano dhagax dhigii dayrka dugsiga Ayaanle Primary waxaanu halkan maanta diyaar u nahay ka maamula iskuul ahaan iyo ka guddi ahaan iyo ka maamul ahaanba in halkan aanu si tabaruc aanu maanta ku bilaabano. maanta waxaan halkan u joognaa waa dhagax dhiga geedka iskuulka Ayaanle oo muddo badan bilaa geed ahaa cidda la doonayo inay samaysaana waa bulshada reer Caynaba. farxad weyn ah inaan maanta dhagax dhigayno darbigii lagu wareejinayay iskuulka Ayaanle iskuulkaas oo ay dhigatar arday badan waxaan ku baaqayaa oo aan leeyahay cid kastoo deegaanka ka mid iyo dadka khayrka ka shaqeeya inay wixii tabarucaad ku soo darsan karaan ay ku soo darsadaan. maanta halkan waxaan ku dhagax dhigaynaa dayrkii dugsiga Ayaanle mar haddaan maanta fasallo loo helaynin oo fasallo aan maanta u dhisanaana jirin waxaan doonaynaa inaan ku asturno bal horta dayr in loo sameeyo haddii alla idmo waa iskaa wax u qabsho waxaa la doonayaa inay dhisaan bulshada reer Caynaba kii muruq heli karaya iyo kii maal heli karaya wasaaradda waxbarashadana waxaanu ka codsanaynaa iyo hay-aduhuba inay nagala qayb qaataan. dalku wuxuu ku dhismay dawladihii hore ee burburka ka horreysay iskaa wuxuu qabsay in la isku tashado gudoomiyaha gobolka runtii aad baa ugu gobaadinaya inuu soo celiyay maanta hal abuurka ah iskaa wuxuu qabso waxa weeyaan annaga dawlad hoose ahaan maanta halkan aan joogo xogay ahaan gudoomiye qayb libaxlaan ku qaadanina aad bay farxad noogu tahay maanta dhagax dhigga kan iskuulkan aynu ku darayno geedka lagu soo wareejinayo sidii waxa ku sheegay annagu ka dawlad hoose ahaan inaanu qayb libax ka qaadano. maanta waxaynu u joognaa halkan inaynu inagu isku tashanno haddaynu nahay reer Saraareed waayo waxaynu qabsanayna waxaynu qabanaynaa waa nafaheenni iyo ubadkeenni iyo bulshadeenni. iskuulkan maalintii ugu horreysaan imid runtii aan soo booqday waxaan ku arkay runtii inta aan ku arko ganacsadii oo dibadda la wada fadhiyo ardaydii oo ma garanaysaa dibadda wada fadhida runtii aynu doonaynaa inaynu iskaa wax u qabsay isku tashi ku samayno wax meel u yaalla ma jiraan waxaynu ka doonaynaa dadkeena gobolka degan iyo qaranka iyo Soomaaliland iyo dadka ma garanaysaa wax la baxay intii waa ka doonaynaa waxaynu uga dan leenahay in aynu inagu isku tashanno oo aynu noqonno dad shilinkooda u hora bulshadooda u hora. وعلي آدم درر علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba.